kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha reer Maxamuud ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee xafladaha ee magaalada New Dar es Salaam ee degmada Galdogob ee gobolka Mudug. kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay wareejinta ciidanka beesha reer Maxamuud oo lagu wareejinayo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. ugu horreynna munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha magaalada New Dar es Salaam Dhamuuke Muuse Shire. kulankeenan aynu maanta isugu nimid deegaanka Dar es Salaam ee degmada Galdogob wuxuu ku saabsan yahay oo muhiimadiisa koowaad ay tahay ciidanka beesha Maxamuud Ibraahim ama reer Maxamuud oo maanta aynu ku wareejinayno dawladda federaalka ee Soomaaliya. ciidankaas tirsigiisa inta uu yahay waxa inoo sheegi doona hadhow taliyaha ciidanka iyo ku-xigeenkiisa ayaga faahfaahin doona. qodobka labaad wuxuu inoo yahay furitaanka xafiiska waa adeegida bulshada deegaanka Dar es Salaam Galdogob Soomaaliya oo boorkiisu halkan dhabarkeena uu idinkaga muuqdo sida aad u jeedaan. insha Allah asaguna laga bilaabo maantay waa xafiis shaqeynaya oo la mid ah xafiisyadii hore looga furay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran iyo gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galdogob. labadaasna waa taageereynaa. kanina waa xafiiskii saddexaad ee u adeegaya bulshada oo ku xiran si toos ah dawladda federaalka ah kana furan deegaamada Puntland. aad iyo aad baan u bogaadinayaa in beesha reer Maxamuud ay maanta noqoto qaybtii saddexaad ee furitaanka xafiisyadaas iyadoo ay labada xafiis oo ka horeeyay ay ahaayeen Baran iyo Galdogob ayna taageerayeen ayaguna ay maanta ku guuleysteen inay furaan xafiis u adeega shacabkooda kana turjuba danahooda kuna xira dawladda federaalka ee Soomaaliya. qodobkeena saddexaad waxa weeye taageero aynu u muujinayno dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta aad la socotaan inay tahay dawladda kaliya ee dalka ka talisa. qodobka u dambeeya afraad waxa weeye haddii Alla idmo isu soo bax aynu ku taageerayno qodobadeenan dhammaan aynu maanta halkan kaga hadlayno oo ah wareejinta ciidanka, furista xafiiska, taageerista dawladda. saddexdaa qodob banaanbax aynu ku taageerayno haddii Alla idmo waa dhici doona maalinta khamiista oo bulshada dhan isugu soo bixi doontaa. sidoo kalena waxaa isna halkaasi ka hadlay Islaan Cabdi, Islaan Cali, Islaan Cumar iyo taliyaha ciidanka beesha reer Maxamuud Cabdi Fataax Goomey. ilaahay baa mahad iska leh maanta halkeena isugu timid waxaan isugu nimid waa dantu waxay tahay ummaddu maanta uma baahna kaligi taliye uma baahna maamul gooni hotaga uma baahna wax kale 35 sano waa ku dhowdahay intii aan ama isdilaynay ama dawlad la'aanta haysanay ama wax walba aan fiirsanay. waxaan rabnaa maanta dawlad caadilo oo diinta iyo dalka wax tadha oo hadda raadkeedii aan hayno waa dawladda federaalka farmaajo iyo khayr. waxaan leenahay ha guuleysteen muslimkuna ha guuleysto. waxaan leenahay dawladda maanta jirto farmaajo wato khayrna madax ka yahay ee yahay ra'iisul wasaaraha ha noolaato. magacaygu waa Cabdi Fataax Maxamuud Barre. halkan waxaan kaga hadlaynaa saddexdaas qodob oo beesha Maxamuud Ibraahim isku tashatay ah. qodobada halkan isugu nimid waxa weeye xafiiska u adeegida bulshada Dar es Salaam oo sida la idin sheegay xafiisyadii ka horeeyay Baran iyo Galdogob laga kala furay oo dawladda Soomaaliya hoostaga federaalka ah. taageerida dawladda federaalka ee Soomaaliya, wareejinta ciidamada Maxamuud Ibraahim dawladda federaalka lagu wareejinayo ciidamadaas oo ah tirsigoodu yahay 387 askari. waxaan ku wareejinaynaa dawladda federaalka ah. waxaan rabnaa federaalnimo, waxaan rabnaa isku xirnaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. magaca Ilaahay waan ku bilaabayaa waa sidii odayaashu u sheegeen. anagu waxaanu nahay Soomaali, waxaanu nahay dad Soomaalinimada ka soo jeeda, waxaanu nahay dadkii Soomaalinimada magaceeda kor u qaaday beesha Maxamuud Ibraahim markii la yiraahdo. waxaan anagu raacaynaa wixii wax wanaagsan wada khayr iyo farmaajo aanu raacaynaa ayaana wax wanaagsan raba sida odayaasha aan u niri ciidankii saraakiishan ku wareejinaynaa. Axmed Daahir Sahal Axmed Shaaciro raadiyaha iyo telefishinka SBC Bursaalax.